dhalooyin la soo shiiday caruurteena aad ugu dhibaatoodaan ilaa ilmaha waxay raashinka ugu go'an Soomaaliya meel kasta aad joogtid dal iyo dibad fiiriya sharoobada caafimaadkii kadib baa laga yaabaa xadditii ka badan ay siiyaan dhibaato badan ay ka soo gaadho dawooyinka kaarjimintana ma fiicna waa xagga beerkaaga waxa la yiraahdo kiliyahaagi waxyaalo badan bay kiisato walaalkii Maxamed Cabdilaahi halkaan naga daawanaysaana waa Duxul Media haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe-ta iyo like-taba hanaga ilaawin insha Allah ta'ala aadna wada maadsanta wixii ra'yigaaga ahna xagga hoose noogu reeb annagoo ku dadaalayna inaan idinka soo jawaabno kana wada qayb qaadano mar walba barnaamijyada wixii muhiim ah wada anfacaya aadna wada mahadsantiin saa barnaamijyada ugu xidhantiin ugana falcelisaan insha Allah ta'ala meel fiican baynu rajaynaynaa iyo umad wada caafimaad qabta maanta caawa barnaamijkeena xogta caafimaad uu ka yargadisan yahay saaka aniga markay xiliyada yahay baan filayaa baan saaxiibkaya wuxuu ii soo diray muuqaalkana wuxuu ku saabsanaa daawo gabadhan malaynayna ay Soomaaliya joogto ana filayaa inay tahay xamar waxay kaga hadlaysay sharoobooyinka yaryar ee ilmaha la siiyo caruurta daawadaasi kuleeda waxaan ka helay biraha ku jira waxyaalo dad wax ka qorqorayana waan arkayay كل مركب مهمة وأدك هذا ليسينات وح نقديد أما هذا وح كشيكتيد وين هذا حكة هيسا كل برامج كمان داوضي سيدا يدو شيء السنة كله وحيالا دارك دونتان نوي كده حشي داودنا وداو كارتي من الله استعماله كدي مجد عيدنا ودارك كارن سالك قرن لو داو كقابن تهاي بارستيمال يبروفين داو اللي يراهدو بارستيمال كقابن بقول لحدنا يلاو ملغرام إياه بقول ملغرام إبروفين مركا حمتجبنا والله استعماله كينيا دهن كل بداود اللي جوسه مية سيدات كقرالة ده يا يضبع لا ده هاي كدي وان يربعري كمبني كوي على كينيا بان كل داود وكوي هلاي مجلسية كدي مناظر حريد بان لسمي ميل بانو تربلوان كسوقيا يا فيديو قاسني يحيى لها كتيرة إن شاء الله تعالى نسوي وابنا ورجينا لكن وين نوحول بيسكه بسنا سيدي فلاسيدين بريك تجمين شرنا يو كلام وحول بالله يعين داود سادوك تاي خسارة إياه فايدة لبض ويلا ذاي تانا وحوسي دار وحول بنا بسنس أيه هذا كلام مهمة مركا وحي تاي مركا داوي المهجة سينس مع النفط هذا سينس عد إيه الكوهاي نختار أما كالكالية عافي ما دوينه كوقرا سيدا هاد سنددي قدام بيجيبا ولي برسج بدن بالجوسوي لبدا داود إنك كقعد مركل سكوترا ملسين كريا حرورته إلا لبدا يكون يستقال كي لبدا يكون يسديتي وربحنا جامعة إنجليز كويا الله يكسر من الريسيرش سيف تيجي دي هدي السكوترا سيدا وحوا قبان كريسا دكتور ربنا نوحي كتاليان سيدا تايتل كعب دار كيسين إن على سنين حرورته لبدا دوا وين عمدون استحماشات وليبا هدي حمدودا ay normal tahay oo kale ma fiicna inaad dawooyinka noocan oo kale ilmahaaga aad siisid ama paracetamol kaliya ama ibuprofen kaliya baad siin karaysaa hadii xumadu iska dhaxdhaxaad tahay dhakhtarkana markaad u tagto ama kalkaaliyaha caafimaad ay sarana tala bixin buu kaaga siinaya dawada ugu haboon laakiin hadda nasiib darro waxaad kale dalka yaala in mar walba dawadii waliba tani waaba kaarjeen baan leenahay antibiyootig iyo dawooyin khatara inaad iska iibsan karaysid kadibna oranaysa farmasiga ay ka iibin marka mas'uuliyad baa ka saaran dawladda bahda caafimaadka iyo dadka wax qoraa ee hadalkooda meel fog bagaadhaba ayagoo doonaya inay sameeyaan marka wax soo qoraysid ama wax sameynaysidna waa inaad research samaysaa maanta hadaa inta wax iska ilaadad iska qaadatid maaha gabar yar inay wax soo dhigto wiil yar halkan soo dhigo waa inaad waxaad sameynaysaa inaad wixii dabagal samaysid kadibna markaad baadhaad bulshada la wadaagtid cidii ay khuseysay lagana wada qayb qaato markaad waxyaalahan oo kale aad soo dhigaysid dadka dawladda iyo dadka caafimaadka mas'uuliyiinta waa inay wax hubiyaan waan ogahay dawooyin badan aan quality lahayn oo hab ganacsi loo keenaa dalka jira oo aad ka naxaysid bal haddii lacagta kula weynaga baxaysaaye in wax waxaan ku soo iibsano dawadana markaad ilmaha yar hadda kaarjibin aad siinaysidna ha ku degdeg hadduu uu fudud yahay waxa la yiraahdo xumadiisu paracetamol kaligiisa tiin karaysaa iska yar fudud waliba dawada company saxda ah iyo sidii saxda ah loogu tala galayba marka dawadani hadda tay ka kooban tahay xitaa dhakhtarada aad uga digeen ilmaha yar ma ogtahay la siiyo intii aan research ku sameeyay ilaa maantana ilaa 6 saacadood baan walahi ku bixiyay waxaan raadinay wadankana hadda aan ku noolahay in la isticmaalo
dawooyin badan bay caruurtu isticmaalaan kaarjibina, laakiin labadan dawo paracetamol iyo ibuprofen oo isku jirta waa kasoo waayay dalkaas. cidaan xitaa telefoon kula hadlayo kuwan cagahaygiiba ku tagayba. marka waa dareemisa kole lagama isticmaalo. waxaan ku arkay uun markaan yar baadhay Hindiya iyo Kenya. marka Hindiyana weliba aad baan ugu sii arkaya, weliba iyadoo waxa la sii raacsan yihiin dawadani. marka waa dareemi karaysa kole wadankan umaba garanayo lagumana isticmaalo, laakiin markaad wax isticmaalaysa ka taxadar. intaad iska soo gadatay odhani waxaana laga helay, ilmahaagaa ka mas-uula. waalidiintuna waxay qabaan wax la yiraahdo fever phobia, Islamophobia waa Christian phobia, waxay wad maqli jirtay. fever phobia waxay baqdinba waxay ka qabaan wax la yiraahdo xumad. ilmahoodii raa markay arkaan xumada aad u haysa way la dhibtoonayaan, way la ordeen caafimaadkii, kadib baa laga yaabaa xaditii ka badinaysa ay siiyaan, dhibaato badan ay kasoo gaadho. dawooyinka kaarjimintana ma fiicna, waa xagga beerkaaga, waxa la yiraahdo kiliyahaagii, waxyaalo badan bay geysataa dawooyinka kaarjiminta la leeyahay. marka muuqaalka gabadhani sida ay leedahayba baynu wada daawano. assalaamu calaykum, salaam bay ku bilaabaysaa. assalaamu calaykum marka waa tan leh ummadda Soomaaliyeed dawladdu way ku sugaysaa meesha, bal dhageysana waxay leedahay. sharoobadan ay soo sameysay dawladda Kenya waxaa ka buuxa dhalooyinkaas oo ay rabaan in ummadda Soomaaliyeed caruurtooda ay ku baabi'iyaan. ilaahay baa iga sareeyay caawa 100 qofood la isku wacay, 100 sharoobo la isku keenay. sharoobadaas oo ay ka buuxaan dhalooyin la soo shiiday, caruurteena aad ugu dhibaatoodaan. ilaa ilmaha waxay raashinka ugu go'aan Soomaaliya meel kasta aad joogtid dal iyo dibad fiiriya sharoobadan. waa sharoobada Kenyaat magaceed aan Ingiriis isku fiicnay, magaceed walaay Faisal ibuprofen baa la kale taagu qoran biyo ku shubeyna arkaya. ilaahay laga cabsado ummadda Soomaaliyeed biyo ku dhaxshay waneegana bal sida xoga dhacaan. salaam qool birrixin salaam Muuse Baharuun warkii lixaad waa ilaahay baa iga sareey. safiican u dhaq ala daayay sharoobada. واكا سومالي الله دلاي الماء ودبات افتيني يا بايا الماركوزين افتيني يا بايا الماركوزين يا سومالي يا الماركوزين يا سومالي ان شاء الله يديك ka aad bay maanta tahay. waa waxyaalaha aynu kor soo daawanay baa kulay ku dhex jiray. marka waxaan leenahay iska taxadarno. muuqaalkan intaas aan ku soo koobayaa. aynu is ilaalino caafimaadkeena, aynu ilaalino. cid walba mas-uuliyad baa dalka ka saaran. waxaad aragtid u gudbi cidda ay khusayso. aynuna dadaalna insha allahu tacaala. seef la boodinayanaan noqon insha allahu tacaala. maanta social media bay noqotay, si yar bay fariintaada ku gaari karaysaa meel walba. aad baad u mahadsantihiin.